dadka badh baa haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshu joogo qofka mu'minka ah nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn dabeetana nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam khayru naasi anfacuhum linnaas dadka waxaa u khayr badan ka u nafciga badan ka u waxtar badan dadka waxaa u khayr badan ka u waxtar badan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay la sheegay nin dibqallooc qaniinay markii dibqallooc qaniinay ayaa nin yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo annaga qoladayadu waxbaanu tufnaaye dadkan dibqallooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akrinaaye ma ku akhriya bal soo bandhig buu yidhi waxaanad akhridaan muxuu yahay wixii buu sheegay dabeetana wuxuu nabigu yidhi ba'si kuma jiro tanaad sheegtay man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal ciddii awoodda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ha taro xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi ayu nnaasi axabu ila allah wa ayu alacmaali axabu ila allah dadka yaa alla u jecel yahay acmaashaase maxaa ilaahay u jecel yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan xasan ligayri uu sheekh alalbani ku sheegayo wuxuu nabigu yihi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtar badan acmaashana waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sururun tadkhiluhu calaa muslim qof muslim aad farxad geliso ka farxisid takshif canhu kurba dhib haysato aad ka faydid aw taqdi canhu daynan ama dayn lagu leeyo aad ka bixisid aw tatruda canhu juucan ama gaajo aad ka quudisid wala an amshiya maca akhin fi xaajatin axabu ilaya min an actakifa fi hada almasjidi shahra wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaan qof muslima si aan baahidiisa ula gudo raaco ayaan ka jecelahay masaajidkayga kan waa masjidu madiina inaan bil ku ictikaafo waxaan ka doorbidayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qof muslima baahidiisa inaan gudo waman kadama gaydahu walow shaa an yumdiyahu amdaa mala allahu qalbahu yowma alqiyaamati rida qofka cadhadiisa qarsada isagoo awoodi kara inuu guto guto kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyuu ka buuxiya qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca isagana maalinta qiyaame ee aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaana wa tacaala gomadiisa suga saddexdan xadiis aan akhriyey alfaadooda aan idiin sharxay waxay wadaagaanoo sheegayaan qofka muslimkii inuu qof waxtara noqdo waxay sheegayaan acmaasha alla u jecel yahay inay tahay dadka kuwa ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay dadka ka ugu nafci badan nafcigaynu ka warramaynaa ama nafci adduunye ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo bini aadamka waxa ugu nafci badan ambiyada iyo rususha waayo ilaahay baa wuxuu soo dhibay waxay aadanaha ku badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhiraba oo markastoo bini aadamku uu qalloocdo oo jidka saxdaa uu ka lumo waxaa la soo dirayay rasuul ama nebi kaasoo loogu talagalay dadka inuu saxo oo noloshooda adduunyo wixii ka qaldamay inuu u toosiyo noloshooda aakhira wixii ka qalloocdayna